halkan oo ah garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir Garowe waxaa soo gaartay diyaaradan oo sidee gargaar daawo ah oo ka timi hay'adda Sodma looguna talagalay in lagu dabiibo dhaawacyada soo gaaray shacabka aan waxba galabsan ee gobolka Sool kuwaas oo dagaal kula jira maamulka Somaliland. Diyaaradda ayaa sidoo kale qaaday dhaawaca 10 qof oo ay ku jiraan hooyooyin hoobiyeyaasha Somaliland ku garaacayso laascanood ay ugu tageen guryahooda waxaana dajinta daawada iyo qaadida dhaawacyada goobjoog ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland. wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa u mahadceliyay mas'uuliyiinta hay'adda Sodma garab istaagooda shacabka gobolka Sool iyo dadaalka ay ugu jiraan badbaadinta birimageydada bulshada. saddex garoonka diyaaradaha magaalada Garowe gobolka Nugaal Maxamed Abshir Muuse maartay waxaan maanta ka dhoofinaynaa dhaawac tiradiisu ay gaadhayso 10 oo dadka ku dhaawacmay gobolka Sool markii culaysku ku batay dhakhtaradii maartay gobolka Sool iyo gobolka Nugaal labadaba runtii waa ugu mahad celinaynaa hay'adda Sodma iyo maariyaheeda Maxamuud Macalin oo tan iyo intii masiibadii dhacday gacan weyn naga siiyay maartay daryeelka dhaawaca keenida daawada iyo raashinka dadka barakacay u baahan yihiin intaba runtii Maxamuud Macalin iyo hay'adiisa Sodma waxaad moodaa inay naga filaadeen maartay dawladda federaalka oo gacanta kaliya aan maartay wax ka helno waxa kale oo halka kaaga muuqata daawo halkan iyo bara oo hay'adda Sodma maartay Maxamuud Macalin madaxda ay soo direen runtii waa uga mahad celinaynaa waana daawo looga baahan yahay maartay daawadii dhaawacyada iyo isbitaalada ay u baahnaayeen waana la socoto daawadu maartay inay tahay wax maartay aad muhiimad gaar ah u leh dadka dhaawaca u leh oo maartay aan maartay saacad walba loo baahan yahay waa uga mahad celinaynaa mahad gaar ah u celinaynaa aad iyo aadna waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.